وهاجاك داوديال مناسبة السيدة تمكن ما يستحسن جورده كسور يكتمل كاي سومالنا قرنمada dib la soo noqotay waxa soo camiray oo yimi ama ka soo qayb galay dad kala duwan oo isaga yimid daafaha dunida mid kamid ah dadkaas ayaan weydiin doonaa baldareenkiisa ku aadan مناسبة السيدة تمكن ما. So Professor Matt Meyer, Professor Marcela Ogadeo-Ortiz, we're from the Americas, North and South, US and Colombia, representing the International Peace Research Association. And obviously, we're not shy about what side we're on. We're for recognition. We're very, very pleased to be here. 33 years is a very small time to do a very large accomplishments of what you have done and what you continue to do. So not only do you need recognition for your own sake, from the African Union, from the United Nations, from the world, but for our sake as well, because we must recognize you for the contributions you continue to make and the lessons that you continue to teach us. We're professors from far away, but we come here as students to learn from you, and we thank you for all your teaching. Thank you. I'm from Colombia, from South America. I'm here learning about the experience of Somaliland. I'm very, very happy to join you for this commemoration. Hopefully, soon, yes. It had it all. Professor Rodan iyo aqoonyahankan ka qayb galay munaasabada 18 May ee ajnabiga ah oo ka socday dalalka Mareykanka iyo Colombia ama qaaradaha koonfurta iyo waqooyiga Amerika waxa ay ii sheegeen in ay ku faraxsan yihiin dabaaldega xuska sanad guurada 3 ee ka soo wareegtay markii ay Somaliland dib gooni istaageeda ula soo noqotay waxaana ay shacabka reer Somaliland ku bogaadiyeen nabadgelyada kala dambeynta iyo dawladnimada ay dhisteen iyaga oo sheegay in ay ka mafsuudeen si weyn ugu farxeen nidaamka quruxda badan ee ay Somaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa loogu soo bandhigay gaardiska gaadaka ciyaarka ciidamada qaranka iyo ciidamada kala duwan ee qalabka sida iyo sidoo kale ururada bulshada ardaydii iyo dadkii kale ee halkaasi ku soo bandhigay munaasabada 18 May waxa kale oo ay dalalka ay ka soo jeedaan iyo beesha caalamkaba u soo jeediyeen in aqoonsi rasmi ah la siiyo Jamhuuriyadda Somaliland oo ay Jamhuuriyadda Somaliland u qalanto in ay noqoto dal madax bannaan oo kamid ah dalalka dunida kuwan oo kaliya ma ahayn waxa munaasabada sanadkan 18 May ka qayb galay ajnabi tiro badan iyo warbaahin caalami ah oo ka socota dalal badan oo kamid ah dunida waxay dhamaantood marka aad weydiiso dareenkooda ay ku sheegayaan in ay si weyn ula faraxsan yihiin shacabkan sameystay dawladnimada taabagalka ah iyo nidaamka kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda ah waxa weeyaan tii hore waxay kaga duwan tahay aad bay uga duwan tahay ciidanku sidoo maray hore looma marin dadkeenu waxay aad iyo aad ugu heelanayeen in ciidankeena oo gaardiyeeya arkaan oo aad iyo aad aragtidooda ay ugu baahnaayeen si fiican bay u mareen alxamdulillah waxa kale oo dhacday maamulka xafladda iyo siday qolo walba uga soo qayb gashay ayaa ka gedisnaa kuwii hore waa xafladii ugu wanaagsanayd ilaa intii aan imika anigu garanayo marka waxa weeyaan waa guul iyo